liibkii aan shalay iniga ballan qaaday oo gacmaha habkee loo cadeyn karaa ama gacmaha habkee wasaqda loogu bixin karaa ama gacmaha habkee madmadowga looga saari karaa aan isla aragno. maxaa idin hayaa new light ujeedaan. kareemkan waa kareem laga qayliyay, waa kareem aad iyo aad u fiican, waa kareem gabdhaha inta badan ee marsadaan. kareemkan wuxuu u fiican yahay meelaha madmadowga oo dhan ayuu u fiican yahay, siiba faraha ayuu u fiican yahay. faraha ma jeedaa meelaha madmadowga dhan soo uma jeedid waxaan dhan uu ka bixinayaa iyo meelahan dhan waxyaalahaas dhan uu ka bixinayaa. marka asxaabta la socod wanaagsan. kareemkan waa kareem loo boga waa new light ayaa la dhahaa, dukaan walba uu yaalaa. dukaanka hadaa tagtid new light aad dhahdid horaa lagaa siinayaa. kaligiisna mala isticmaalayo, waxaa ku dareynaa kareemkana ku dareynaa oo clear body cream la dhahaa. clear aan magaciisa la dhahaa. saa ujeedaan screenshot waa ka qaadan kartaan, dadka inta badan weyba yaqaaniin. inta aan aqoonin insha Allah screenshot ka qaata. midkan asigana sidoo kale new light ayaa la dhahaa, laakiin screenshot waa ka qaadan kartiin asxaabta. waxaa kaloo idin hayaa qaybta saddexaad waxay tahay nafaqa maasha Allah oo wajiga u fiican. scrub waaye saa u taqaaniin. face and body scrub ayaa ku qoran. bodigana waa loogu talagalay jirka aad iyo aad ayay u qurxinaysaa maasha Allah. wuxuu wasaqdoo dhan way ka tirtiraysaa isla markii light ayay ku siinaysaa. 5 daqiiqo oo kaliya ayay ku marsanaan face-ka ama 10 daqiiqo. gacmahana 20 daqiiqo sababtoo ah wajiga iyo gacmaha isku mid ma ahan. marka ka faa'iideysta midaan ayadana screenshot waa ka qaadan kartiin. dadka inta badan kuma arkin scrub-yada kale ayaan ku arkay, laakiin midaan faa'iido badan ayay leedahay. ani mid oo hadda ka hor iga dhamaatay oo babaay laga sameeyay ayaan haystay, midaas khatar ahayd ayadana. ayadoo babaay ayadoo caano ayadoo nooc walba taalo. marka asxaabta insha Allah ka faa'iideysta hadee waan kan hadana sida iskugu dardarsanayna ayaa isla arki doona insha Allah iyo qaabka loo marsanayo. sidoo kale shalay waxa soo galiyay clip oo aan ka hadlayo bacahan. hadaa intaan isku qabatid labadan kareem bacdan galisid 20 daqiiqo oo kaliya ku yeesid, kadib hadana ka bixsid oo scrub-kan ku scrub gareysid. maasha Allah aan ku dheh gacmahaaga adiga jeclaani doontid, dad kale intaan la gaarin adiga is jeclaani doontid. marka asxaabta hala soo tijaabiyo. waxaan jeclaa waxyaalaha dhan oo aan aniga ka faa'iiday oo wax ii tara inaa idinkan iiga faa'iideeyo aad jeclahay, maadaama asxaabteeda igu xiran aad tihiin oo subscribe iyo oo wax alle waxa soo galiyo oo arkayaan maadaama aad tihiin. marka waxaa jeclaysta maanta inaan iiga farxiyo sirta aan gacmaha ku cadeeyo. haddana la socod wanaagsan qaabka iskugu dardarsanayna ila arka. asxaabta haddana waxaa ka bilaabeynaa gacmaha. marka ugu horeyso waa inaad dhaqataa gacmihii qoyana oo xoogaa soo nadiifisay. gacmaha marka ugu horeyso biyaha aan ku dhaqayna waa biyo xoogaa qandac waaye, kuleel ma aha laakiin waa qandac. gacmaha sas marka soo nadiifisid oo u dhaqdid waxaa sameynaysaa kareemka waa ujeedaan oo new light face ku sawiran asxaabta, laakiin face looguma talagelin. kareemkan waxaa waaye face hadaa marsid khatar waa wajiga ka halaabayo. wax yar aga baahanahay oo kaliya. kareemka wax yar markaan ku shubay ujeedaan. waxaa kaloo ku darayaa kareemkan kan hadaa haysanin kan waa isticmaal kartaa, waa isla mid asigana waa clear. saa ujeedaan narjin coconut ayaa laga sameeyay. cocoa butter ayaa la dhahaa. cocoa butter waa ku darsani kartaa, laakiin hadda ani cocoa butter way iga dhamaaday. waxaa ku darsanayaa midkaaneeto oo clear cream aan ku darsanayaa. saa ujeedaan saasaa u darayaa. markaa ku daro waa isku qasayaa. saa ujeedaan new light-ka iyo clear isku qasayaa. si fiican iskugu qasayaa. marka si fiican iskugu qaso gacanta marin lahaa waatan. labadaba waa marina laakiin midaan ka bilaabaya hadda. soo marinaya gacanta oo dhan aan wada marinaya.
saasaa loogu rugayaa asxaabta brushka saa u jeedaan brushkana ku rugayaa si fiican aan ugu rugayaa waxaa ugu daran siiba meelaha ugu daran aan ku rugayaa iyo meelahan hore meelahan suulka agtiisa laabka ah iyo suulka naftirkiisa meeshaan kore meel walba aan ku rugayaa waxa ugu darana waxay tahay madmadowga laga bixinayo saaidka ah meelahana madmadowga galaan badana saa u jeedaan asxaabta si fiican ayaan ugu soo rugay saa u jeedaan si fiican aan ugu rugay haddana maxaan sameynayaa wax yar oo waxaa ku darayaa new light aan ku darayaa because kaas korka dhan wuxuu ahaa gacanta dhan uu ahaaye hadda marka meelaha khaaska madmadowga ah new lightka iyo kareemkaaniita isku qasayaa waa sasaarayaa asxaabta saa u jeedaan saana loo sasaarayaa soo tijaabiya asxaabta saa horan iigu sheegay haddaa intaan sameysidoo bacda gelisidoo ka bixisid soo tijaabiya asxaabta idinkaa gacmihiina jeclaan doonteen quruxda ay nagu soo baxaan meelahan oo kale madmadow yaraa ku leeyahay maalin horaa saliid iiga soo faniintay meesha saliidda iiga soo faniintay waa saarayaa way reysatay marka asxaabta saan markaa meelaha u saasaartay si fiican u saasaareysaa meelaha madmadowga ku badan yahay saas markaa u saasaartid kadib maxaa gelinaya bacdanaa gelinaysaa bacdan horaa usoo geliyey iyo ku jirta anagaa heeno haddaa u baahan tahay nala soo xiriir bacdana saan u gashanaysaa gacmihii oo aa rugtay oo brushka iyo kareemka aa ku rugtay oo wasaqdii oo dhan aa ka bixisay haddana meelihii madmadowga yar oo kaa lahay aa ka saartay oo haddana bacaa sii gelisay maasha allah waxyaalaha madmadowga oo dhan bacday soo raacayaan quruxay gacmaha ku noqonayaan haddana kis kaloo yar aan qaseenaa wuu nagu yaraaday galeeyaha wax yar aan qaseenaa new lightkana asigana wax yar aan ku dareenaa gacmaha hala nuuriyo waay maanta hala nuuriyo kareemkan hala soo tijaabiya asxaabta waa laga qayliyaan ku dheh maasha allah aaduu kula shaqeynaya gacantaana tan lee lagu marina oo bacda leh gacmahaaga biyaha markay ku dhex jiraan mar walba aa wax dhaqdhaqaysid madmadow lagama weynaayo haddaada kareem la daba istaagsaneynin mar walba marineynin marka wiigiba haddaa maanta 3 mar saan yeeshid ama 4 mar maasha allah iska dareemi doontaa waa rugeynaa midaan ayadana maanta gacmaha laga shaqeynayaa asxaabta si fiican aan ugu rugay saa u jeedaa meelahan siiba si fiican loogu rugayaa kadib sidoo kale haddana waan saasaareynaa saa u jeedaa sida midkaas kale aan gacanta kale aan yeelno oo kale waan saasaareynaa new lightka kaligiisa ha marsanin asxaabta kareem qaboojiye ku dara laazim ma ahan kaleeya kaligiisa inaa isticmaashin kareemkan kaliya maaha kareem walbo qabooba ku darsani kartaa
inay fahamteen aan filaaya gacantoo dhan hadaartid waa marsani kartaa markaa kareemka aa ku dirtid waa laakiin keligiisa marsan Newlight asxaabta waa kane marka saana ku joogaya 20 daqiiqo aan saan asxaabta haddana waa kane 20 daqiiqo waa ku joogay waa ka bixinaya waa u jeedaa sida gacanta u nuuraysa ayadoo laga dhaqin kareemkii ee soo nuurtay waa ka dareemi kartaan u maleeyaa sida soo nuurtay marka welina waxa uu sii dhiman scrubka ayaa uu sii dhiman scrubkan lagu dhaqaaya hadana scrubkan maasha Allah aad iyo aad u fiican yahay asxaabta soo tijaabiya kana ku rogaya kareemka marka dhaqaysid ayadoo kareemka sidii u leh ayaa hadana waxa ku la rugaysaa scrubka si fiican u rugaysaa markaan brush ku rugaysid scrubkan gacanta la ku rugaysaa gacantan kale ayadana scrubka maree gacanta inaan geliyo asxaabta waatan ayadana gacantan kala rugaya hadana hadana cabaara ku joogaya 10 daqiiqo ku joogaya maadaama 20 daqiiqo kareemka ku soo joogay scrubkan si fiican in loo rugo waayo si fiican u dhex kala wasaqda dhanka bixiyo waaye haddana waxa ku joogayna 20 daqiiqo isku soo laabanayna asxaabta u jeedaan way ku soo qalashay nafaqada waa ku soo rugay way ku soo qalashay 10 daqiiqo ayaa ku soo joogay marka haddana waa soo dhaqaaya gacmeena maanta dhan ka shaqeynayni aan daqiiqadahaas oo dhan aan siinay bal aan aragna sida quruxda badan ee noogu soo baxay haddana sinkiga aadaya waa soo dhaqaaya isku soo laabanayna waxaa ku soo dhaqaaya saabuunta oo bariiska ku soo dhaqaaya saabuunta bariiska aad iyo aad u fiican tahay gacmaha wajiga dhammaan asxaabta gacanteena waa kan saan quruxda badan ee ku soo baxday u jeedaan si ay u cadaatay waa u jeedaan wasaqdi madmadowga oo dhan wuu ka baxay ma qaayna si fiican u arki karto sida quruxda badan ee gacanta ku soo baxday hadaasay ahayd waa isla ogeene haddana sida u soo nuurtay waa u jeedaan si fiican loogu jeedaa inay si fiican u qabatay si fiican u soo nuurtay saa u jeedaan asxaabta marka hal soo tijaabiyo insha Allah gacmahaaga saa quruxda badan ee kugu soo baxayna u jeedaan asxaabta waa u jeedaan gacanteeda sida quruxda badan ee ku soo baxday maasha Allah ayay noqotay marka gacan qurux badan hadaa rabtid intaas hadda aan ku tusay insha Allah isticmaal ee marso gacantaada saan ay u qurux badnaanaysaa maasha Allah waa ka heli doontaa marka asxaabta haddana waxaa idinkaga sii tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu